بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa cajaladii saddexaad ee siirada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, waxaana inoo soo jeedin doona sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun. siyaadka kan culimada qaarkood waxay ku tilmaamaan ku macnawiya, laakiin labadaba cumuumankiisaynu ugu qaadayna. waa siyaabaka dharkaaga fatahir daahirso, dharkaaga iyo jidhkaaga iyo najaasaadka iyo mustaqdaraadka ka fogow. idan haddii muuqaalka sare uu yahay in la dahiro, waxaad ka garanaysaa muuqaalka hoose in la dahiraano inuu ka weyn qalbiga in la daahiriyaa. oo kow shirkiga iyo najaastiisu, shirkigu waa najaaso, inama almushrikuuna najas baa ilahay, najaaso ka weyni gaalnimo ma jirto. idan najaasaadka macnawiga abaa ka weyn najaasaadka xisiga ah. yani najaasaadkan laska uskadan iyo kaadidan iyo xaarkan iyo waxa kasii daran oo ka qurmuun oo ka kudaafad badan, kuwa macnawiga ugu horeysa gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo wixii la halmaana. saa awgeed baa alla wuxuu leeyay subxaana watacaala wasiyaabaka fatahir, dharkaaga daahir yeel. oo daahirnimadaasi ta muuqaalka sarena lagaa rabo, ta qalbigaana lagaa rabo, oo ay kamid tahay inaad shirkiga ka fogaato, oo ay kamid tahay akhlaaqda xun dhammaanteed inaad ka tagto. walidalik baa iyada ilaahay gaar usii tilmaamo, waxaa la yidhi wrujsa iyo wrijsa, labada waa laba kala saxiixe. wrujsa fahjur, xumahana rijsigu asliyan waa cadaabka ama sakadka ilaahay, cadaabkiisa iyo cadhadiisa wixii keenayo dhanna ka fogow. waxa keenaya ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisaba waa macsidiisa, waa ilahay oo la caafiyo, kaana ka fogow baa ilahay leeyahy subxaana watacaala. idan qofka muslimka ah waxaa kaloo alla uu nabiga yihi walaa tamnun tastaktir. masaladana waa masale ubaahan ahlu dacwa aayaadkan inay aada sharxooda ufahmaan baa ku fiicantay. walaa tamnun tastaktir, hagalabaysan baa wax la yidhaha adigoo badsiinyo ku raba. yani waxaa la tilmaamaya waxa kan inaad ilahay darti uqabato, ikhlaas inaad uqabato. hadduu noqdo tilka bitilka, waxaad adna ku rajaynaysa markaad waxaan samayso dadku yana inay ma ku weyneeyaan ama magac kuu yeelaan ama aad hanti kaga heshid ama aad caynka kaga heshid, asarkii aakhira waad waayeysa. walidalik ba waxaa ku aragteen qur-aanka inta badan maa asalukum calayhi min ajrin, isagoo nebiba waliba leh. nebi walo la soo diray ba wuxuu leeyay war anigu hadda dan gaaro aan idinkaga leeyay ma jirto. ilaahay ku xidhma markaan idin leeyahy, ilahay ka cabsada markaan idin leeyahy, danaan idinkaga doonaya ma jirto. idin melihi madax iga dhigta, idin melihi daba socda, idin melihi wax igu siiya, idin mel jaah iyo mudnaan iyo waxba toona idinkaga dooni maayo. waa sunat alambiya. hadda waxa fiican markaasi dadku inta badan bini aadamku tuhumu iska qaba, war ninkan waxaan uu idinku yeelayo nama sharcigan uu leeyahy raacun arma isaga dani ugu jirtaa, ama armuu madaxnimo ku doonaya, ama armu sidan ku doonaya. armaadaasoo dhan waxay ku fiican tahay marka hore la sheegay inaad waxba kaga doonayni. walidalik baa ilahay nabiga markuu u bilaabayeyba waxaa la yidhi walaa tamnun tastaktir, hagalabaysanin adigoo badsiiyo ku raadinaya oo wax kaga doonaya. walirabbika fasbir baa ilahay uu gebagabayey. ariiqan haddaad marto waxa hubaala inaad dhib badan la kulmi doonto. walidalik wuxuu u baahan yahay sabir. sabirku waa waxa shay inuu midho dhaliyo, sabirunba u asala. waxaan loo sabrin ma midho dhaliya. wax kasta oo la rabo midho la goosto in laga helo waa inuu noqdaa wax loo sabray oo loo gaadiiday. laakiin haddaad xamaasada hore iyo xusxusta hore ku rabto wax waliba inay ku saxmaan, waxba kuma saxmaan. walidalik ba ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala walirabbika fasbir. alle ama rabbigaana wixii dartii kugu soo gaadha ee dhib ee mashkilada kaa hor yimaada, taana u sabir ba ilahay leeyahy subxaana watacaala, oo in badan u dulqaado. aayaadkani markaa waxay tilmaamayaan waa laba qaybood. qaybi waxa weeyaan balaaq iyo indaar, laleeyahay dadka wax u sheeg. qaybta labaadna waxa weeyaan wuxuu isagu ku dhaqmi lahaa iyo qaabkuu noqon lahaa qof kasta oo raba inuu dad wax u sheego oo diin xambaaraana waxaa looga baahaya inuu si wanaagsan u fahmo. aayaadka koowaad ee risaaladii nubuwada ka hadlaya runtii wax badan bay dadka u taageeraya. nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaadkaas ayaa alla ku soo dejiyey. dabeetana noloshiisii waxaynu leenahay 20 sano in ka badan ama dhowr iyo 20 sanadood ayuu qaa'im ahaa oo aanu raaxaysan oo u taagnaa inuu alle subxaana watacaala diintiisa dadka ugu yeedho, oo dhibi ka soo gaadhay oo wax walo ka soo gaadhaba u ogolaa inuu ugu dulqaato. waxay culamadu halkan tilmaamaan waxoogaa ay kaga waramayaan waxyiga iyo qaababkii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo degay. waxyigu
saynu hore usoo sheegnay waxa ugu horeeyay qayb ah alru'ya saadiqa, in riyo dabeetana dhacdadaasi uu sideeda u arki jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu riyooda ah. qaybta labaad waxay ahayd in uu malag qalbigiisa ku afuufo, oo waa kii nabigu xadiiska masalan saxiixa ku tilmaamayey ina ruuxu lqudus nafata fii rawci anahu lan tamuuta nafsun xata tastakmila risqaha faاtaquu llaha waajmiluu fi طalb walaa yaxmilanakum istibطaء الrisqi calى an taطlubuuhu bimacsiyati illah fainama cinda allah laa yunaalu ila biطaacati. yani nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ruuxu lquduska oo malakuljibriil ah wuxuu rawcayga ama qalbigayga wuxuu ku afuufay inaan nafina go'i doonin arsaaqdeeda ay dhamaysato mooyaane. arsaaq weligaa ka warwari, intii lagu kasiba adigoo dhamaystira mooyaane naftu kaa bixi mayso, kuna weydaaran mayso. ee ilaahay ka cabsada buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, oo doonistana fiicnaysiiya. xaaraan iyo xalaal midkaad ku raadisaba intii ka badan mayso. laakin wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ajmilu alab, doonista wanaajiya xalaal ku raadiya, oo risqigaa naga raagaya ayuu idinku kalifin inay ilaahay macsidiisa martaan. ilaahay agtiisa waxa yaalla arsaaqda ilaahay waa bixiya, ilaahay agtiisa waxa yaallana dee isaga raalli ahaanshihiisa lagu doonaa. ilahay inaad wax ka doonto haddana aad doonto inaad macsidiisa kaga maroojisataa waa adagta. idan maadaama ay gacantiisun ku jirto oo cidda wax laga doonaya isaga un tahay, waxaa haboon inaad si fiican uga doonto oo si xalaala aada uga raadiso. idan xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya o nabigu leeyahay rawcayga ama qalbigayga ayaa uu malagu ku afuufay. waxaa kaloo qaab saddexaad oo nabigu waxyiga ula kulmi jiray ah inuu malagu ugu yimaado karajul isagoo ah oo si caadiya ula hadla, oo saxaabada ag joogtaana ay maqlaanba, sidii xadiidkii cumar macruufka wada garanaysaa lahaa nin maryacda agtiso caynkaasoo soo galay dabeetana uu ag fadhiistay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wax weydiiyo uga jawaabo. markii dambe uu ka tegayna u nabigu ku yidhi kaasi wuxuu ahaa jibriil oo diintiina idin baraya. oo xataa bacd saxaaba ay leeyihin dixyat ilkalbi saxaabigii la odhan jiray suuradiisa kale ku iman jirayba. qayb afraad baa jirta oo uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam intay saxaabadu weydiiyeen sidii waxyigu kuugu yimaada, ayuu wuxuu yihi mila salsalat ljar, dawanka yeeristiisa oo kale mid oo dawaq kulula, waana nooca nabiga ugu adkaan jiray calayhi salaatu wasalaam. noocaas markuu waxyigu ugu imanayana xataa iyadoo qabow oo baraf ku dhacayo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhididku dacaladiisa ay ka di'i jireen, oo hadduu awr fushayo ratigu wuu cuslaan jiray oo wuu fadhiisan jiray dhulka. bale axad saxaaba zayd waa kii tilmaamayey maalin maalmaa kamid a iyadoo bawdada nebigu ay saarantahay bu ley yani adinka nebigu isagoo igu tiirsan ayaa waxyigu bilaabay inuu kusoo dega bu leeyay. adinkiisiibaa intuu igu cuslaaday ayaan xeji kara ilaa bawdada ay iga kala jabi gaadhay bu leeyay. adinkuba way kala jabi gaadhay. waana noocu ugu adkaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu kusoo degayo. nooc shanaad baa jira uu ugu soo degi jiray oo ah inuu suuradiisii asalka ahayd uu ku arkaba. taasina iyado laba gooro qurun bay dhacday. nabiga calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil suuradiisii asalka ahayd 2 jeer un buu ku arkay, sida suuratu najmi ba ilahay kaga warramaya. 2 jeer un buu kula kulmay. waxaa kamida bay yidhahdeen waxyiga siyaabuu nabigu kula kulmay in uu alla subxaana watacaala u waxyooday fawqa asamaawaati 7. waa markii la dheelmiyey alisra walmicraajkii markii nabiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam ee malakuljibriil meel go-an uu ku hadhay wuu dhaafay nabigu calayhi salaatu wasalaam cinda sidrat lmuntaha wixii loogu soo waxyooday waajibaadka salaadu ay kamid ahayd iyona qaabka gedisan bay ahayd. xadiiث اisra masaailka u sheegayana waxa weeyaan inuu alla toos ula hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii nebi muuseba uu tooska ugula hadlayay. siyaabahaasi waa siyaabaha ay tilmaamaan in waxyigu nebigu ugu soo degay. mushaafaha miyuu u qaatay, miyuu isagoo alle arkayo subxaana watacaala la kulmay masalada salafku waa isku khilaafsan yihin oo waxay ka dambaywataa qadiyada ah nebigu alla ma arkay mise ma arag habeenkaasi la dheelmiyey. laakiin sida saxiix ee raajix ahi waxa weeyaan inaanu arag. markaynu intaa soo dhaafno nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhaha muddo ayuu diintii faafinayey, laakiin waxa uu faafinayay muddadaas si hoos. muddadan uu hoos u faafinayay yani muu iclaansan dadka ayuu dooranayay. wuxuu dooranayay dadka caqliga badan leh, dadka wax ka maqlayaan, dadka isaga wax ka dhegaysanaya, dadka rumaysan ee usilay way ku raacayaan. markiiba mujtamac ayuu kala dooranayay. markaasi fardi iyo qof iyo midmida ayuu wax ugu sheegayay. muddadaasi intay ahayd
wax sanadoo saxiix kuma soo aroorin. inta badan dadku waxay sheegaan un 3 sanadood, laakiin 3 sanadood waxaa sheega waaqidina waa mutaham, iyo ibnu isxaaqna biduuni sanad buu kusoo arooriyey. markaa ma soo aroorin wax xadidaya. baladari ninka la yidhahdo isna taarikhda qora 4 sanadood buu sheegaa. calaa kulli xaal in wakti noocan ay ku socotay jirtaa waa xaqiiqa, iyadoo laskuma khilaafsana. ilahay intay nusuustii dambe andir cashirataka alaqrabiin ay soo degaysa ama fastax bima tumar midaa tidhahdaba aayaadkaasi intay kasoo degayeen. ama taxdiidka waktiga ah culamada taarikh inta badan 3 sanuun bay sheegaan, laakiin min xaysu alxadiidka haddaynu sanadka eegno ma sugna sanad ahaan. waktigaasi uu nebigu siriyada waxu waday ee uu hoosta waxu waday, dad badan ama dad waxoogaaya ayaa diinta aqbalay. waxaynu naqaanaa cumuuman ciddii ugu horeysay nabigaba dejinaysay ee sheegaysay inaanu bele la kulmayno waxay ahayd khadiija. ficlanna waxaynu leenahay khadiiji ciddii ugu horeysay ee saabiqiinta islaamta ayay kamid ahayd. waxaa kaloo cidda saabiqiinta rumaysay nabiga kamid ahaa, sida xadiidka tirmidi uu sanadka saxiixa ku warinayo, cali ibn abi talib oo la yidhaahdo 10 jir meelahaasu ahaa, wiil yar ahaa. dadyaga hore uu rumeeyey waxaa kamid ah zayd ibnu xarisa, saxaabigii la odhan jiray ee uu nebigu alayh salaatu wasalaam markii hore tabaniyey, ka caadadii carbeed siday ahayd. zayd ibnu xarisa yani wuxuu ahaa nin isagoo meel maraya baa la afduubay, dabeetana waa la qabsaday, waa la gaday, addoonnima loo iibsaday. khadiija akhiiran iibsatay, dabeetana nebiga alayh salaatu wasalaam bay siisay. nebiguna wuu tabaniyey. marka tabanigu waa caada aljaahiliya. intaan qur-aanku soo degin suurat axzaab aayaadkii ku jiray tabaniga mamnuucay. qofku intuu qof ilmo qaato inuu ula dhaqmo sidii ilmo uu dhalay oo looguma abtiriyo carabta caadada wa iska lahayd. yani ilmo asliyan aanu dhalin ayuu korsanaya, haysanaya, ilmahaasaa uu qaadanayaaba, dabeetana waa loogu magac daray. waa kan gaaladu ilaa hadda isticmaashay adabshanka ay ku tilmaamaan fi shariica, laakin ma banaana. oo markii dambe waxya soo degay diidaya masaladaasi. waa walaaladiin la islaamnimo ku koriya, laakin qofna yaan aabihii laga dhafirin, ciddii dhashay unba dhashay. wiilkaasi oo nabiga alayh salaatu wasalaam gurigiisa ciddii joogtaya isna wuu islaamay. waxaynu odhan karnaa cumuuman xaafadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii joogay waxay kamid ahaayeen dadkii ugu hor islaamay. hadduu yahay cali uu nebigu korinayey, hadduu yahay khadiijo xaaskiisiiya, hadduu yahay zayd ibnu xarisa oo ah ninkaasi uu nebigu tabaniyey. xataa waxaa la tilmaamaa baraka umu ayman islaantii la odhan jiray, oo iyana dee ahayd ba islaantii uu uga dhintay adoon aabihii uga dhintay oo haystay. islaan xabashiyada bay ahayd, islaan madow oo xabashiyada, laakin waxay ahayd dumarka ugu khayr badnaa mid kamid ah. kuwa dadku nebigu aadka u jeclaana way ku jirtay. saxaabadii waaweynaaye macruufka ahaana way ku jirtay. umu ayman islaantaa la odhan jiray, waana islaantii nabiga soo korisay ee soo xadaanaysay. yani may nuujin, laakin way xadaanadiisa ayay ka qayb qaadatay. waana usama islaantii dhashay, usamata bnu zayd. iyada lafteedu dadkaa hor islaamay bay ku jirtay. khaarija baytihi markaynu eegnana dadka kale ciddii ugu hor islaamtay waa abubakr sidiq, saxaabiga la odhan jiray, oo ay markii horena saaxiib ahaayeen. waa dadkii ugu horeeyey ee islaama. yaa u hor islaamay marka la xadido, riwaayaad badan oo kala gegedisan baa soo aroora. siday isugu xigxigeenna riwaayaad kala gedisan baa soo aroora. walidalik bay culamada qaarkood waxay isku dayeen inay jamciyaan waxaasoo dhan ay ku jamciyaan fikrad odhanaysa dumarka khadiija ugu horeysay, caruurta yaryar cala ugu horeeyey, addoomaha dadkii ahaa zayd baa ugu horeeyey, raggii waaweynaaye mudakarkaana abibakar baa ugu horeeyey. waa marka nooc min jamc ay isku dayayaan in loo ururiyo. abibakar dadkan u horeeye islaamay inuu ahaa, ibnu kasiir masalan wuxuu ka istinbaado xadiidkii sheegayay maalintii intay saxaabadu abibakar iyo axad saxaaba baa murmay. waxaan rajaynayaaba inuu ahaa cumar bin khaaab. abibakar khayr allah siiyo, saxaabi weyn buu ahaa. saxaabadana dee muslimiintana nebi maxamed dabadi ninka ufadli badan buu ahaa, lakin nin aada kulul buu ahaa. markuu cadhoodo nin aad u sharaaro kulul ayuu ahaa. marka maalin bay isqabteen, cumar waxoogaa baa la yaro murmay. dabeetana abibakar oo yaro xanaagsan buu nebigu arkay alayh salaatu wasalaam. wuxuu ka cadhooday in abibakar laga cadhaysiiyo. dabeetana wuxuu nebigu ku lahaa in allaha bacatanii ilaykum faqultum kadabt. waar ilaahay baa dad iyo ikiin soo diray buu yihi. dabeetana waxay igu tidhahdeen bu yihi been baad sheegaysaa. abibakarna waa runtaa bu yihi run baad sheegaysaa, ii daaya buu lahaa abibakar. yani nebigu alayh salaatu wasalaam abibakar si gaar ayuu ula dhaqmi jiray. walidalik bu saxaabado dhan lahaa abibakar marnaba gaadhaysaan iska dhaafa ninkan hala ii daayo.
abibakar markaa waxay leenahay ragga uga hor islaamay buu kamid ahaa. kadib abibakar ayaa isna faaciyey oo islaamka dadka ugu yeedhayey. qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaana waxa weya wixii khayra soo gaadha muslimiinta kalena ugu gaarsiiya. islaamku saasuu ku faafay. islaamku ma faafiyaan culama un, yani culamadu waa ahlulcilmigii, masaa'ilka cilmiga iyo wixii diinaya cilmigaa la weydiiya. laakiin qof waliba uu garanaya inu dadka ku yidhaha war laa ilaha illa allah dhe alla ka boqoyo ilahay caabud iyo macsida iska daa. qof aan garanayna ma jiro. idan qof kastaaba hadduu rabo inuu intan dadka gaarsiiyo waa gaarsiin karaa. bal in aad wada garanaysaan baa jirto, in badan oo aan garanayni jirto. haddaad rabtaan in salaada la barto, inta masaajidka joogta salaada saa loo tukado badiba waa taqaana. in badan aan aqoonba saa loo tukadaa jirta. intaa ducaad ba unoqon kari lahayd inaad salaada bartaan say utukadaan iyo ilahay say uga cabsadaan iyo. idan diintu waa shay u baahan dadku inuu wada ilaashado, muslimiinta oo dhami. walidalika abibakar markiiba wuxuu bilaabay isna dacwo firfircoon oo inuu dadka kala gaarsiiya. dabeetana waxaa soo islaamay saxaabada waaweyn casharatu lmubashiriin. ragga intooda badani gacanta abibakar baabay ku islaameen baa la idhaha. cala kuli xaal raggii waaweynaa ee muslimiinta ee islaamka soo galay markaasi waxaa kamid ahaa cuثmaan ibnu cafan iyo zubayr ibnu cawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf, sacd ibn abi waqas, طalxa ibnu cubaydillah. raggaas baa kamid ahaa iyo amiinu hadi lumma abu cubayda ibn ljarax. raggaasi markay soo islaameen weliba waxaad moodaa in ay taargatay in la qabtay qabaa'ilkao dhan in wax laga islaamin karo. yani waxaad moodaa quraysh reerihii kala gedisnaay o dhan inay niman kale ka kala tirsanaayeen. masalan cuثmaan ibn cafan oo kale nin umawiya bu ahaa, reer bani umaya nin ka tirsan. zubayr ibn cawaam oo kale nin asdiya bu ahaa. cabdiraxmaan ibn cawf iyo sacd ibn abi waqas oo kale reer bani zahra bay ahaayeen. طalxa ibn cubaydillahi oo kale nin taymiya bu ahaa. yani waxaad moodaa jilibadii ay qurayshi ka koobnayd oo dhan in la waajahay cid walba sidii cid looga soo heli lahaa, si dacwadu aanay unoqon mid reer gaara reeraha kalena yidhahda waa wixii reer hebel wateen oo ay iska fogeeyaan, reer gaara ku koobnaata ayuu reeraha oo dhan si islaam u waajahay. dad badan baa markaasi islaamnimada kolba cidi soo gashay. dadyaga u hor islaamay waxaa kamid ahaa markaasi abu cubayda kamid ah isagona reer bani xaarisa. waxaa kamid ah abu salama ibn cabdilasad almakzumiy iyo haweenaydiisii umu salama saxaabayadii la odhan jiray. waxaa kamid ahaa alarqam ibn abilarqam almakzumi. waxaa kamid ahaa cuثmaan ibn madcuun oo jumaxi isna u dhashay. raggaas oo dhami cubaydat ibn alxaris ibn cabdilmualib ibn lmualib ibn cabdimunaaf. dad badan baa soo islaamay saxaabadooda. marka laga waramayo saabiquuna alawaliin ilaa 130 dad gaadhaya baa la tilmaama oo rag iyo dumarba isugu jira. laakiin kolley waa soo kala horhoreeyeen. siday usoo kala horeeyeen axaadiis sanadkoodu saxiix iyo tiro badan baa kusoo aroortay, laakin riwaayaadka iskhilaafsan yihin. oo masalan axaadiista ka warramaysa o kale abi dar alghifariy goortu islaamay oo kale, ama damaad oo kale ka warramaysa, ama ka warramaysa yani saxaabadii badan ee soo islaamtay ee noociyaadka kala gedisan soo islaamay. dhowr baa sheeganaya masalan raabicu arbaca inuu ahaa, kii afraad inuu ahaa ibnu kathir iyo marka ay kulminayaan ninka la yidhahdo ibn xajar alasqalani waxay leeyihiin axaadiistan o dhan waxa lagu kulmin karaa bay leeyihin dacwadaas siray ahayd. maadaama ay sir ahaydna lama garanaynin kii soo hor islaamay nin waliba wuxun buu 2-3 yaqaanay mooyaane wux islaamada ku afara. laakin maadaama wuxu ay sidu socdeen waxaanu caalan ahayn, kolba cid laga hadlayo kolba qofku soo islaamayon midba unoo kanuu yaqaanay ama la xidhiidhay unbuu moodayo in isagu afreeyey. markaasaa laga yaabaa dhowr inoo kala gedisan inuu axaadiis ka soo arorta nin waliba u leeyahay raabicu arbacaan ahaa, kii afreeyey baan ahaa. waa fi xuduudi cilmihi bay leeyihin dad kaloo muslimiin oo badan baa jira. walow qoyskaa guriga nebigana ha noqoto alayhi salaatu wasalaam. qoyska kunaaba dee maxay ah marka la sheego khadiija iyo cali iyo zayd marka la sheego saddexdaba looga inay goor hore islaameen. abibakr hadii lagu daro de afartiiba halka waa joogaanba. saa daraadeed waxaa laga karta axaadiista raabica wada sheegaysa waa fi xuduudi cilmi ayuu mid waliba ka warramayay. dadyaw badan baa markaa islaamay. dadyawga masalan saabiqiinta kamid ah aan laakin quraysh ahayn. waxa aynu soo sheegno o dham waa quraysh. saciid ibnu zayd iyo haweentii u qabay faatime ee cumar bin khataab walaalahaayeen iyo khabaab ibn aras saxaabigii la odhan jiray iyo jacfar ibn abi talib iyo haweenaydiisi asma bintu cumays la odhan jiray iyo khalid ibnu saciid ibn alcaas iyo haweenaydiisi amine la odhan jiray iyo kuwaasoo dhame goor hore soo wada islaameen. dadyawga aan kamid ahayn camaar ibnu yaasir iyo kooxahaasoo dhame goor hore islaameen. dadyawga aan kamid ahayn quraysh ee islaamay waxaa kamid ah cabdillahi ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray oo hudali ahaa iyo mascuud ibnu rabiica oo qaari ahaa iyo cabdillahi ibnu jaxash. dadyawga lasii tilmaamo waxaa kamid ah masalan suhayb ibnu sanaan oo ruum u dhashay,
camaar ibnu yaasir oo canis ahay aabihii iyo hooyadii ninkii adoonka camir ibnu fuhayra laodhan jiray fuhayra abu fukayha miya may adoon ma ahayn camir ibnu fuhayra baan rajaynaya raggaasi waxay ka wada mid ahaayeen aduu raggii aan quraysh ahayn ee soo islaamay haweenka aan quraysh ahayn ee islaamay iyagana waxaa kamid ah umu ayman aynu sheegnay haween badan baa islaamay maala abibakar oo kale gurigiisaba waa laga wada islaamay ilaa caaisha ay lahayd gurigeyga anigu wuxun baan caqliyaystay bu lahaa reerkuba isagoo muslima reerkayga isagoo qof gaaliba ku jirin ayun baan anigu caqliyaystay dadyawga hore u islaamay waxaa kamid ahaa asma bintu abibakar oo kale dad badan baa islaamay wax cibaadaada oo soo degay oo macruuf oo xoog loo garanaya ma jiro bacd culamaai taarikh ama bacd culamaat ibn xajar oo kaliyaba waxay ku tagaan qabla alisra walmicraaj qaطcan in salaad la tukan jiray ay jirtay isra walmicraaj 5 salaadood baa soo degay laakin ibn xajar oo kale wuxuu leeyahay qabla alisra qaطcan salaad la tukada baa jiray caaishana de waa mata laga wariyay riwaayada salaada markii hore laba ay ahaan jirta markaasa laga dhigay afar ala kuli xaal salaad culamadu inta badani waa sheegtaa in salaadii uu jiray la tukan jiray weliba subaxii iyo habeenkii in la tukan jiray ama uluucu shamsiga waktiga iyo qabla guruubiha meelahaasi oo kale in la tukan jiray salaada baa la tilmaamaa axaadiista iyagu sheegaya waktigaa in jibriil markiiba waysada nabiga baray kuwaasi waa axaadiis iska sanadkooduna aada u liito matnigoodana nakaaro badan ay ku jiraan oo qaadasho badan ma leh nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu muddo dacwada sidaa waday ayaa waxaa la faray inuu dacwada kor ugu dhawaaqo waxaa soo degay aayadda qur'aan waandir cashirataka alaqrabiin inkastoo baan filaya mufasirkii tabari oo isagu fastac bima tu'mar aayaadka u leeyahay aayaadkaasaa jahriga keenay ayan kanat waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo degay masalan aayaadkan waandir cashirataka alaqrabiin ka tilmaamay suurat shucaraa suurad makiya suuradaasi oo ka waramaysa runtii qiso ay culamadu yidhaahdaan waxay u ahayd nebiga deganaashiyo iyo ma-aalka qadiyadiisu ama cidhibteedu waxay noqon doonto la daareensiinayey waayo suuraddaasi waxay ka waramaysaa qisadiisa oo kala martay fircawn iyo nebi muuse bilow ilaa dhamaad ayaa qisadaasi soo socota waxay kaloo ka waramaysaa qoomam horo tiro badan oo nebiyadoodii diiday oo la halaagay nuux iyo caad iyo thamuud iyo qowmu ibrahim iyo qowmu luut iyo asxaabu layka waxaasoo dhan bay ka waramaysaa waxay kaloo ka waramaysaa un suuradda tani dadka fiicani ciribta fiican inay iyagu yeelanayaan ama ay ku dambaynayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu bilaabay dacwo calana inuu sameeyo oo dadkao dhan loogu yeedhayo dacwadaasi aqaaribtana inuu ka bilaabo yaa qaraaba u ahaa nabiga alayh salatu wasala quraysh o dhaba qaraabadiisa qof maalin intuu casuumad u sameeyey inuu isugu wada yeedhay oo dabeetana abilahab uu hadalka bilaabayba u yihi waa kuwan adeerada iyo tolkaay o dham isu yimaadeen iyo waxa aad wada iyo rabshada dadka hageynin oo dagaal aan reerku geli karin hagelino yani inuu hadalkiiba isagu ka hor bilaabay oo markaanu maalintaa waxba odhanin nebigu maalin labaad inuu haddana isugu yeedhay maalinta labaad markaasi inuu ilaahay u mahad celiyey oo bacda shahaada uu la hadlay qaraabadiisi yarayd weedhuu ku yihi inay kamid ahayd in araa'ida laa yakdibu ahla saxanku tolkii uma been sheego yani reeruhu hadday nin saxan loo dirto la idhaha bal meesha roobka aliyo wax soo meel abaarabo intuu soo arko ma yidhahdo reeraha soo raba waxaa soo arkay yani lagama filayo saxan la dirto intuu soo noqdo inuu been akriyo waayo marka horeba saxanka in reer ku guura loo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bay leeyihin qabiilkiisa yar hoose markuu la hadlayay ina araa'ida laa yakdibu ahla saxanka cidda loo dirtaa dadkooda uma been sheego ee ilaahay baan ku dhaartay aan alla kala jirine ilaahay rasuulkiisii baan ahay idinka gaar loo idinku soo diray dadkao dhanna loo soo wada diray ilaahay baan ku dhaartay waa dhiman doontaan sidaa u seexataan waa laydin soo bixin doonaa sidaa usoo toostaan waana laydinku xisaabi doonaa waxaa camal samaysataan janno iyo naar abadiya midun baa geli doontaan riwaayaadka daciifkii waxay tilmaamayaan masalan ama riwaayaadka ahlu taarikhku ay wariyaan abu aalib baa u jawaabo wuxuu yihi aad baan u jecelay inaan ku caawiyo nasiixadaadana waan aqbalay run inaad sheegaysana waan ogahay tolkaana waa kuwaas oo waxay ku kulansan yihiin inaanu mid adiga kaa mida nahay laakiin naftun baan yaro jeclaysanayn buu yihi cabdilmualib diintiisa in laga weecdo naftun baan jeclaysanayn
yani waa kuu gargaarayaa oo hiilkaad iga rabto waad iga helaysaa, laakin diintii reerkaan ka haysanaya anigu markay diin tahay halkii reerkaan joogaya, laakin inankii dee reer ka dhashay baat waad helaysaa gargaarkii waad iga helaysaa. abulahab ba hadlay bay idhahdeen oo isaga yidhi hada wallahi sawa, waa ceeb waxaan aad wadaa aba aalib iyo maxamed waxaa isugu jiibinaysaa waa ceeb. abi aalib o reerka odagiisii baa tay inankaa yar inta in dagaal aynan qaadi karin aanu ina gelin maanta gacanta qabo. abi aalibna wuxuu ugu jawaabay bay dhaha wallahi lanamnacanahu ma bakayna, ilahay baa ku dhaartay waan waxbaan ka celin inta aan noolahay inaan cidi taabanaynin. calaa kuli xaal waxay tilmaamayaan ninkan tolnimadii iyo qabiilkiina inuu ugu hiiliyey, rabay inuu u gargaaro wiilkan iyo adeerka u yahay, laakin diin ahaan muu qaadanin. riwaayaatkaasi inta badan waa mashhuur fi taarikh, laakin culama alxadiid wax sanad fiican u sheegaya maan arag. ama xadiidka jabal safa isaga waa xadiis saxiixa. nabigu alayh salaatu wasalaam waxaa la yidhaha aayaadkani markay kusoo degeen ayuu soo baxa, dabeetana wuxuu yimi buurtan yaro safa la yidhahdo. safida iminka waa tan masaajidka gudihiisa labada qurood ee inta la dhex socdo, laakin berigii hore kacbada iyo dee safa daara iyo magaala udhexayn jirtayba, yani meel aan kala dursa buuro yaro markaa banaanka kaga yaabo kale ayaa u ekay. meeshaa yar buu yimi nabigu alayh salaatu wasalaam, dabeetana wuu qayliyey ya sabaxa, waa sabaxa buu ku qayliyey. weedhatani cinda alcarab waxay udhigantaa un hayayda soomaalida oo kale, waa qof wax arkay ama balaayash arkay ama war dhiilale ama wax qof raba inuu sheego, oo meesha intuu istaago marada lalo hayaay kasoo kaca yidhaahda un warkii weeyaan. carabtu say u isticmaali jirtay. halkaasuu istaagay, dabeetana waa qayliyey. qurayshi markaa yeedhatan way ka yaabtay, war yaa qaylinaya waxa la arkay inuu maxamed yihi, dee beenna laguma baran, alamin sadiq baa loo yaqaan. war waxa maanta ka dhawaajiyey ba la yidhi waa arrin khatar ee inugu yaacsiiya. dadkii oo dhan baa isu soo baxay ba la dhaha, dad aad u badan, qabiil aan cidi ka imani ma jirto. markii la ogaaday inuu nebi yani maxamed ba iyagu rumaysay inuu nebi maxamed yahay alayhi salaatu wasalaam, ayaa cid waliba timi, xataa abilahabkii mucaaradka ku ahaa baa yimi meeshaysa soo taagay. markii la wada yimi ayuu qabiil qabiil u kala qaaday. ya bani fahr, fahr ibn ma yani waa quraysh, ayaa qabiil ahaan quraysh buu kasoo bilaabay markaa. waa reer bani faharo, reer banu cadayo, reer bani fulano, reer banu qabiilkii buu kala saarsaaray, haddana hoos usii waday. reer banu cabdimunaafow, reer banu cabdilmualibow, ilaa riwaayaadka qaarkood ay sheegayen inuu soo gaarsiiyey maxay xagga hoose faatima iyo cabaas iyo meelaha inuu sii gaaray si usii kala waday. wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ku yihi intuu u yeeray qabailkii oo dhan, ara'aytukum law akhbartukum ana khayla bilwadi bisafxi hada ljabal turiidu an tugira calaykum akuntum musadiqiin. war may rumaysanaysaan haddaan idiin sheego war odhanaya buurtan dacalkeeda dambe fardaan kusoo arkayo ciidamo waa laydin gelaya, mayga rumaysan lahaydeen. yani wuxuu rabaa inuu u tilmaamo marka hore khabarkiisa siday u arkayaan, warkuu sheego war aydan ogeyn oo ah buurtaasi waxa ka dambeeya aydan arkaynin haddaan ka waramo oo sheego in col soo socdo laydin gelayo, warkaa ma iga qaadanaysaan oo ma rumaysanaysaan? waxay idhahdeen nacam, ma jarabna calayka kadiban, saanan ku rumaysan ba yidhah, managa weligaaba wax been la yidhahda kugu arag, ma jarabna calayka ilaa sidqa, run waxaan ahayn kuguma naqaano, marka saanan ku rumaysan. waa sawti ah. waxay culimadu inta badan ka warramaan, yani ashaabi dacwa wax fiican bay idhahdaan sawti ah inay u sameeyaan. ta kale qofka hadalkiisa waxa la aqbalay og yahay marka siqa lagu qabo. yani masalan tusaale iska fudud, cid manzilatu shaykhuka dadku ay u rumaysan yihin, cid ay sheekhnimo u rumaysan yihin hadduu war sheego dadku markiiba waa wada qaadanaya. yani masalan tusaale iska fudud, cid manzilatu shaykhuka dadku ay u rumaysan yihin, cid ay sheekhnimo u rumaysan yihin hadduu war sheego dadku markiiba waa wada qaadanaya. nin dhalinyaro xataa haba cilmi badnaaday hadduu intuu soo fadhiisto war akriyo, wallahi nin dhalinyaro mid kaa sheegaya in la yidhahdo mooyaane waxaad moodaa dadka inay hore uga daadegen, waayo weli kalsoonidii ahaa ninkan inuu sheekh yahay ayaa dadku in badan mala qaadanin. saa daraadeed waa laga yaabaa in runba ha ahaatee wuxuu sheegayay in laga soo yaro ururido. marka siqadu kalsoonida in qofka lagu qabo wax sheegaya wax weyn bay ka tahay. sida awgeed ayuu nabigu alayh salaatu wasalaam awalan kalsoonidooduu dhistay oo wuxuu leeya war may rumaysanaysaan haddaan halka idiin sheego bal saan idinku ahay agtiina. waxay sheegeen markaa inay ku kalsoonyiin oo aqbalayaan akhbaartiisa. wuxuu ku yidhi markaasi fa inii nadiirun lakum bayna yadaya cadaabi shadiid, haddaba waxa aan idinka digaya oo aan ka digaya cadaab kulul baan idinka digaya idinka horeysa oo idinka dambaysa.
weedhatan markuu yidhi oo saan ugu dhawaaqay oo weliba midhmidhu kala qaaday cidi dheg badan uma taagin bale wuu ku sii waday baa la yidhahdaa wuxuu tilmaamay war qurayshay war ilaahay naftiina ka iibsada cadaabkaasi naftiina ka badbaadiya war anigu waxba ma hanto laa amliku lakum min allahi bara walaa nafca walaa ugni cankum min allahi shaya ilahay agtiisa iminka ba anigu waxba idinkama taro ninkii ilaahay rumeeye raaca ayaa ilaahay badbaadinaya laakin nebi maxamed baanu tol ahayn ama qaraabo ahayn ama tolnimo la wadaagna waxba ku heli maysaa buu nabigu leh alayh salaatu wasalaam yeeloo ilaahay raaca markaasu weliba qabiil walba hoos ugu sii kacay ilaa xad bay dhahdaan culimada uu gaarsiiyey cabaas ibn cabdilmualib ilaa soo gaadhay ilaa weynantiisii soo gaadhay baa la yidhahdaa oo yidhi faatima bintu maxamedey waa kuwa xoolahaygiiyo waxaad doonaysa weydii wixii aan hayo waxba kaa siinayahay laakiin naftaada cadaab ka dhawro daad adigu diidda inaad cadaab iska ilaaliso waa ina nebi maxamed cidi cadaab kaaga dayn mayso ee cadaab iska dhawr buu ku leeyahy. abilahab wuxuu ahaa nimaana la barakaynin nebi maxamedna adeer ruma u ah yani kuwa nebiga ka fogaana ilahay waa ku anfacay diintii. abilahaba adeerkii rumana alla kuma anficin. abilahab markaasi wuxuu yidhi markay dadku saasu u sheegay tabban laka saa'ir alyawma ala hada jamactana waar hoog maalinta inta ka hadhay ma waxaad dadka isugu yeedhaysay waxaan moodaya yani wax kaloo war inaad sheegayse waxaad la hayaa ilaahayda dadka isugu yeedhaysayba ma intaasay ahayd buu kuleeyahay hoogay. dabeetana waxaa soo degay aayaadkan quraan ilahay leeyahay tabat yada abi lahabin watab ma agna canhu maaluhu wama kasab sayasla naaran data lahab wamraatu xamaalat alxatab fi jiidiha xablun min masad. suuraddanina runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadka ee qur-aanku inuu xagga alle ka yimi lagu rumaysan karo. waayo halkay carabtu yidhahdaan beedkiisii buu salad kura ku wada riday nebigu beedkiisii oo dhan salad kura ku wada riday. marka aayaddani maxay sheegaysaa? quraysh dad badan oo gaalaada ku jiray soo maaha yani waxaa muslimkuba wuu yaraa. abilahab gaar baa isaga loo tilmaamo waxa la yidhi adigu naartaad gelaysaa. abilahab wuu awoodi kari waayo markula inuu yidhahdo laa ilaha illa allah. hadduu laa ilaha illa allah markula yidhahdo maxaa dhici lahaa? in la yidhahdo qur-aanku waa beeniya maxamed wuxuu sheegaya ilan kan waxaa tii naartu gelaya waa kan laa ilaha illa allah loo islaamay oo jannu geli doonaay wuxuuba waa dumi lahay. laakin waa mucjizaadka yani qur-aanka waxyaaba tilmaamaya inuu mucjisaya bay tilmaamaysaa. abu sufyaan lama wada nin naar baad gelaysa isagoo kuwa waada kamid ahaa bale 21 sanadood buu nabi maxamed la dagaalamayay. 23 sanadood ee waxyigu soo degayay 21 sanadood qaa'id gaal hogaaminayo ahaa. haddana ilahay unbaa tawfiiq waafajiyo 2 sanadood ee u dambeeyay unbu istabaqabta iska islaamay. dabeetana saxaabi buu noqday islaamka u jihaadama oo dagaalamo markii dambe waa ka yani abu sufyaan hadduu ahaa laa ninka la yidhaha tabad yada abi sufyaanin waxay noqon laha in la yidhaha qur-aanku been buu sheego de wuxuba ma aha wax sax. idan waxay leenahay aayadda suuraddan yari waxay tilmaamaysaa qur-aanku siduu mucjis u yahay. xataa basharkii meesha joogay ayaa la yidhi kan isagu weligii islaami maayo fi naar baanu gelaya. dadkan kale si raja way qabaan oo wax islaami karoo badani waa ku jiraan. ficlanna dad badan baa dadkii islaamay laakin isagu sidiisii buu ku halaagsamay oo halanaadkiisii ku yihi. nabigu alayhi salaatu wasalaam saas ayuu dadkii oo dhan wada gaarsiiyey. ilahayna wuxuu farayay fasdac bima tu'mar waacrid cani lmushrikiin. ku dhawaaq baa la yidhi oo caddee kala dilaaci waxa alla ku faray subxaana watacaala gaaladana iskaga jeeso. sidii ambiyada kalaba ulahay ya qawmi icbudullaha maa lakum min ilahin gayru taas baa la yidhi caddee oo nabigu alayhi salaatu wasalaam bilaabay. dacwadii jahriga ahayd markay bilaabantay waxaa bilaabmay markaasi dacwadii kasoo horjeedkeeda ahayd in loo ololeeyo sidii loo baktiin lahaa. awal waxay ahayd de afraad qof in loo tago oo islaamnimada loo sharxo ama gala ama diidaba qof un baan ayaa wal u socotay. dadkan horena qof bay usoo islaameen. imikase waa si calana inuu nebigu wuxuu sheego alayhi salaatu wasalaam inuu tago goobahay ku shirayaan meelaha lagu sheekaysto dhulka la isugu yimaado kacbada iyo meesha yimaadaan dhulka sanamada ku caabudaan meel walba in laga sheego si calana. marka waxay noqotay dacwo ololaheeda wadata oo dib u bilaabantay loo ololeeyey oo si cadna u socota. nimankii carbeedna markaa waxay bilaabeen in la isu tago sidii loo waajihi lahaa laga fikero. walidalik baa waxaa bilaabmay isutagyadii ahaa matalan qaababkii looga hortegi lahaa in la sameeyo. matalan waxaynu naqaanaa culamada taarikh inay soo arooriyaan inay shireen carabta oo wax la isweydweydiiyey oo waxyaabaha la isweydweydiiyey ee kamid ahayd
Walid bin Mughira oo kale ay yidhaahdaan baa isugu yeedho waxay yidhahdeen war maxaynu nidhahnaa ninkan waqtigii xajkiina waa soo dhowyahay jaahiliyadii carabta weli way xajaysaa oo nebi ibraahim dee diintii ka tegay weeyaan marka waxaa laleeyahay war wakti mawsimaa soo dhowo markii buuxsami doonto dee hadduu dadka intuu wixiisan uu bandhigo uu dad helana waaba laynaga badan karaa ninkani xoog buu helayahay iyuu xoog helayna dadka kale aan ka hortagna maxaynu nidhahnaa maxaa dadkii lagala hortegaya waxyaabaha isweydiinaya waxaa kamid ah nidhaahno waa gabaya waa falalow waa sixroole waa caynkan waa kuwa culamaa siira sheegay inuu mid kasta Walid bin Mughira diidanayo lahaa ma jirto kana maaha hadalkiisana hadalkani hadal kaay waana qana warkiyo sixroole iyo falalow warkii maaha maaha ninkani nin waalan maaha sixroole warkii maana qana gabaya waana qana iyo gabayada sida badaha gabayga oo dhan la tiriyo dhan waana qana mid kasto bad gabay waan garanaya waxaan wadaa bad gabay ma aakhirkii bay yiraahdeen bal waa tan maxaan dhahnaa waxay sheegeen oo dhan markuu radiyay ayay isaga yiraahdeen bal waa uu talakay qaba maxaan dhahnaa wax kala garan maayo baa waxa ugu dhadhow inaynu dhahno maxay waxaan waa sax ku baa la qaatay xaqiisa inaynu marno dhahnaa kale waa sax roole وانا سورة المدثر قيمية لم دم سمعت كسودة شيء علماء الشيخان إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وعلى الأول أنت قاعدين أيادك اللي شكر مكان على ذلك مكان لا يصوغ له مكان يقول لي maadaama dhulku uu buuralayayna wadooyin yar oo kooban u bajiro oo laga soo galgalo dhulka laga soo galo dhan inta loo qaybiyo dadka ka hortaga oo wacyi geliya oo faafiya propagandadeena tan oo been fakatay dadnimo gaadadii weeyaane beentan la sii daldalo inta aanu waxani gaadin beentan iyo faafinteeduna runtii waa saalib soo jireena hatta kuwan dambe ay rumaysan yihiin yani مثلا qaacidada eelaanka bay yiraahdeen ugu weyn la rumaysan yihiin waa warka in lagu celceliyo dadku aakhirka uu rumaysanaya BBC markay ku wado waxay sheegtay run baa imka la sagaa istawa dalil BBC sheegtay run baa haysta ay BBC sheegtay inay diinta kamid tahay mushkiladu waxa weeye ku celcelinta tan waayo waxa la yiraahdaa ra'yiga kan مثلا nabariyada eelaamiga ku celceliska dunida waxay uga dambaysaa qabla dinin la oran jiray qabla dua wasiirkii eelaamka Hitler baa la yiraahdaa Hitler wasiirkiisa eelaamku waxay ku tala galeen ciidan baa jabay iyo waxaan la sheegin in been dunida lagu harqiyo dabeetana wariyaashii buu ninkan wuxuu kula ballamay maadaama dawladda naadi oo adag ay isku xiran beenta sheega laakiin ugu celceliya dadku rumaysanayaan uune jarad buu ninka tamar wuxuu ku bixiyeen ku celceliya marka waa qaacida islaamiya dadku waxay u baahan yihiin in warka lagu celceliyo akhiran oo iska qaadanaya hadii dhow goor lagu celiyo ninkaasi waa irhaabi dadku dhan irhaabi ku qaadanaya waa mujarrad oo nin warkaasi uu noqdo war lagu celceliyo inuu noqdo waxay qaateen nimankan carbeed inay meelahaasi oo dhan tagaan beentaasi la faafiyo laga horeysiyo علماء التاريخ ما سيده وسوريه لكن فعل كا مثلا ابو لهب وكله waxa la yiraahdaa dadkii dadka daba socday musnad imaam ahmad saqora kale inuu kamid ahaa isagu ragii baxayay bal inuu isagu nabiga daba gali jirayba isagu ciidaariga ugu daayay idinku warka kale oo qabaa'ilkan iyo wax niman iyo ku sifaasiya xajka marka la soo imaado isagana aniga idaayo oo isaga daba soconaya marka waxa la yiraahdaa intuu nabiga daba galo ayuu nabigu wuxuu tagay manaasishii dadku ay tagayeen suuqyadii dadku ay kala tagayeen uqaad iyo majanna iyo dilmajaat iyo wameelihii marka carabta ay degi jirtay marka la isugu yimaado xajka meelaha la tagaa xajka meelaha markay soo maraan suuq baa mushtar buu hayo wixii dunida la isaga xiro dhan baa lagu kala iibsadaa wuxuu kala ahaan jiray qabaa'ilka carbeed isugu faanaan oo la isugu afdhigto qabiil waliba gabayaagiisa iyo aftahankiisu keeni jiray ama khudbad ka jeedin jiray ama gabay akhriyi jiray oo gabayadaasi ay ahaan jireen marka la yidhaha wallahi qabiilka dee reer hebel gabayaagooda loo qabacdhigi kari maayo oo meel adabku la isugu soo bandhiga bay ahayd markuu nabigu daba socdo ee uu reer meel tagan u yimaado bay yidhahdaa ilaahay ka cabsada waryaa wax iga dhicinayaan ilaahay diintiisa dad gaarsiiya ilaah baa daba taagan oo leh ana adeerkii iyo wiilkan yar waxba dhageysanina waa wiil yar bidcoolo diinta ka baxay buu yiraahdaa saabi bay ku sheegi jireen saabi waa qofkii diin hore ka baxay diin dambe gala yani waa wiil yar bidcoolo oo ka tagay ana adeerkii waxba ka dhageysanina buu la daba taagna asaliib badan bay adeegsadeen runtii asaliibtaasi dacwada laga hortagay waqtigaasi waxa kamid ahaa in lagu jeesjeeso lagu cayaayiro istihzaa loo muujiyo lagu qosqoslo la maago laga dhigo kaanama qof waalanay qofka hadii mujtamac oo dhan meesha soo fadhiistaba hadii lagu qoslo lagu boqol wad waalan taaqaka yani qof waalan oo kala doo kaanaysa
dadkan xataa waalan dadka waa aragteen isagoo marka hore iskaba yara miyir qabaa xoog waalan bay carruurta iyo dadka iyo daba buuqaana markaasu kasii wada dhigaa adigoo miyir qabaa haddii kuwa lagu itixaamooda waalanaysa runtii waxay isku dayeen markaa in loo sameeyo dacaayada tana ilaa xad in suuqa laga saari karo walidalika waa ka dagaaladaas oo dhan qur-aanku ka warramaya dagaalka iclaamiga ah ee ilahay qur-aanku leeya waqaaluu ya ayuha aladi nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun bay idhahdaan ilahay ka baqa buu le markaasa leeya kan qur-aanku kusoo degayo nin waalan baa tahay bay leeyihin waxyaabay kulahayeen waxaa kamid ah sukriyada iyo kadibka keenayay wacajibu an jaahum mundiru minhum waqala alkafiruna hada saaxirun kadab waxay la yaabeen ba ilahay yidhi mid digaya inuu yimaado markaasay gaaladu waxay yidhahdeen waa sixroole beenaale ah ayay yidhaahdeen waxaa kasii dana sida isha loogu mudayo loogu xaqiray yani hadalka marmar baa ficilka iyo hamziga iyo ilkumudka iyo carabka uu kasii faalxun yihi walidalika ba ilahay wuxuu leya wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim waxaabay ku dhawaadeen ba ilahay inay kuwa gaaleen inay isha kugu legdaan ba alla yidhi lama samicuu dikra wayaquluuna inahu lamajnuun bale istihzaagooda wuxuu gaaday inay yidhaahdaan ilahay ma cid adiga dhaanto o soo dirtaa bu intoo agoon yara la soo dirayo odayadii qorashadoo dhami way joogaane ma qoraysh iyo dadkii hantiraa iyo dadkii waxayste iyo waayeelka maxaa loo soo diri waayo intaa ina yaroo agoon iyo raja kusoo koray alla soo diranayo waa ka alla ku tilmaamaya markay iyagu lahaayeen ma ilaahay maadu kugu manaystay bay annaga dhexdayada waa ka allana ugu jawaabaya alaysa allahu biaclama bishaakiriin waar ilahay miyaanu ogeyn cidda un mahadnaqaysa cidduu isagu dooranayo miyaanu isagu ogeyn waa ka ilahay qur-aanka ka warramaya in aladina ajramuu kanuu min aladina aamanuu yadxakuun waida maruu bihim yataraamazuun waida inqalabuu ila ahlihim inqalabuu fakihiin waida ra'awhum qaluu ina haulaai ladaaluun wama ursiluu calayhim xaafidiin jeesjeeskan iyo cayaartan iyo kuqosalkan iyo buuqan iyo waxani waxay gaadheen dee xad qofka caadiga waxaynu dhan waa la waali karaa walidalika ba ilahay qur-aanka wuxuu alla ku leeyahy nabiga isagoo tilmaamaya mashaaladan dhibta ay ku hayso walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquluun ba ilahay yidhi waan ogahay ba la yidhi subxaana watacala ila laabta ku cidhiidhtoomayso waxanay kaa sheegayaan sidanay ku dacaydeynayan iyo waxaa kaa sheegay haddii mujtamac weliba kuwii kuugu xigaya tol iyo qaraabaad lahayd haddii alla kugu diro iyagun kaa daba shaqeeyaan oo saa lagu dacaayadeeyo magaalado dhami kaa soo horjeeto dadkao dhami ku wada dacaayadeeyo naftaa isugu kaa imanaysa ilahay laakin wuxuu tilmaamay markii loo sheegay walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquluun markii alla tilmaamay waxa kaloo alla uu sheegay suurat alxijr wuxuu kaga bixi lahaa dabeetana waxa la yidhi fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiika alyaqiin ilahay wuxuu yihi iska tasbiixso oo ilahay u sujuud oo xidhiidkaad alla leeday badi waxaan kaloo dhami waxba noqon mayaan idan qofka muslimka ahi sanad uu ku tiirsado balaayo o dhami hadday halasho sanad lagu tiirsado de waa alla subxaana watacaala ilahayna qofka muslimkii wuxuu kula hadlaa waa markuu salaada tukanayo qofku markuu salaada tukanayo ilahay buu toosula hadlaya ilahay baana kuu jawaabaya sa axaadiista saxiixa oo nabigu ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam saa daraaddeed ba ilahay wuxuu leeyahay tasbiixso oo sujuud oo ilaahay caabud ilaa inta geeridu kaaga imanayso halkaagaa joog inaa kafaynaka almustahziin ba ilahay yihi kuwan kuu jeejeesaya anaa kaa kaafinaye sidaa yeel ba ilahay yihi subxana watacaala inaa kafaynaka almustahziin aladina yajcaluuna maca allahi ilahan akhara fasawfa yaclamuun waxaa kaloo alla uu tilmaamay nabiga alayhi salaatu wasalaam ariiqan inuu yahay ariiqay ambiyadu mari jirtay marka inaanay keliga ahayn dhiftuye waa wado mucabad ah yani waa wado la gudliyey oo hore hortaajira waa uu soo maray nabiyadii hore ay soo mareen adkaysaa laleeyahy walidalika ba ilahi wuxuu leeyahy walaqad istuhzi'a birusulin min qablik faxaaqa biladina sakiruu minhum ma kanuu bihi yastahzi'uun adiga rusushii kaa horeysayba waa lagu jeesjeesay ba ilahay yihi laakiin beleda wuxun bay ku dambaysaa ba ilahay yihi kuwa jeesjeesaya ee adigu ariiqaagaasi hay xarba dacaayaha badan way wadeen waxay kaloo wadeen yani xuruub tiro badan bay nabiga la galeen alayhi salaatu wasalaam waxay kaloo wadeen xarb shubahaat italatu shubahaat iyo dacaayaad been oo kaloo tiro badan in la sameeyo oo a dadka sidii caamada loo shaki gelin laha mar waxay dhahaan waa adwaatu axlaam maxamed habeenkii unbuu riyoodayo dabeetana subaxiibu intuu isku soo toostoosiye bay yidhahdeen ayuu la yimaada yidhahdeen waa laysoo waxyooday bal iftaraahu bay lahaayeen waa soo been abuurta inama yucallimuhu bashar dad ba usoo dhigdhiga bay yidhahdeen meelahaasu kasoo dhegedhegeeyo waxoogaa uu dadka kasoo dhegdhegaystay in hada ilaa ifkun iftaraahu waacaanahu calayhi qawmun aakharuun qaar kale ugu gargaaray bay yidhahdeen oo jimanba waxu sheegsheegay iyo waxbay sheegaan waa qaar kale bale waxaad ka garan kartaa xataa dacaayadani siday u faaftee dadku u aqbalay axadu saxaaba wuxuu ku islaamay masaladan damaad saxaabiga la yidhaahdo wuxuu ahaa qabla alislaam
dadka jinka ka saara ayuu damaad ahaa. xadiiskaas waa xadiis saxiixa. damaad markaa waxaan maqlay buu yihi ninkaasi in jindardareen wararkii lasoo gaarsiiyey wax laga dhaadhaciyay maxamed in jindardaray nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam. marka waxaan maqlay buu yihi ninkaasi inuu xanuunsanayo jindardaray, dabeetana wuu soo lugayo waxaan u socday buu yihi bal miskiinkaasi dadka ku qaylinaya jinka ka saar. magaalada marka wuxuu yimi markaasi inuu maxamed jinka ka saaro. kadibna waaba ima waxa ku yihi buu yihi nin dhakhtaraan oo tabiiba jimankana dadka waa ka saara, dee dhibtaan waa lagugu sheegaya aabbahaga kaa bixiyo kaa farsameeyo. warkiisii markuu akriyey ee uu sheegtay ayuu nabiguna calayhi salaatu wasalaam la hadlay. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa xamdaladii buu ku bilaabay, ina alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu. xamdaladu akriyay. markuu ku akriyey ayaa waxaana igu yihi acidhu iigu celi. haddana wuu ku celiyey buu yihi. markaasaan idhi bu yihi haddana acidhu iigu celi. wuu ku celiyey buu yihi. markaasaa waxaan gartay buu yihi warka ninkani sheegayo inaanu ahayn warkii jimanka iyo sixroolayaasha iyo baabkan kaahinada iyo farsamadan aqaanay warkeedii inaanay ahayn baan gartay buu yihi. markaasuu islaamay oo qadyagii ugu horreeyay islaamu kamid yahay. saxaabadii saabiqiinta ahaa ayuu ku jiraa damaad. sababtu u islaamayna waa nabi maxamed jinka ka soo saar buu yidhi. yani waxaad garan kartaa markaa dacaayadu siday u faaftay ama dad uu qabuulay. waa mushkilada imika iclaamka reer galbeed wahay oo kale. reer galbeed iyagaa dadka dilaya, waxay doonaan samaynaya, iyagaana warramaya. oo wixii jirayna iyagaa ka sheegaya, dadka u sheegaya. dadku waxay sheegayaan unbu run u haystaa. halna kama runha, inta ugu badani waa been. dee ilaahayna marka horeba wuxuna yidhi wain jaakum faasiqun binabayin fatabayanu. faasiq hadduu war idinla yimaado iska hubiyaa la yidhi. kaafirka isaga kiisa maxaad umalayn markaa? inaguna kaafirka inugu rumaysan ogni. waxay sheeganayeen iyagu markaasi waa asaatiirul awaliin bay lahaayeen waxa kusoo degay. bale waka qur-aan soo degay ilahay uu masaladan ka afilayo. markay yidhahdeen jiban baa kusoo degay iyo ra'yi baa la socda. carabta waxay rumaysnaan jireen nimanka gabayaagooda inta badan in wax loo sheeg sheego oo jin kalaa la socday ohan jireen gabayaaya haddaa aragtay jiban baa ku sheega. saasay rumaysnaan jireen. marka waa ra'yi fulaan baa la odhan jiray oo la socda wax sheeg sheegaya. ilahay baa markaa qur-aan soo dejiyeene hal unabiukum cala man tanazalu shayaaiin tanazalu cala kulli afaakin asiin baa ilahay. waxaa ma idiin waramaama ilahay yidhi kuwa shaydaamadu kusoo degaan, sixroolayaasha iyo beleda iyo kuwa fali iyo waxa shayaaiintu kusoo degaan waa calaa kulli afaakin asiim. mid kastoo beenaala oo dambi badanaa buu kusoo degaa. ee baleega nabi maxamed oo ma ku haysaan calayhi salaatu wasalaam? mid beenaala oo dambi badanaa taarikhdiisa ma ku haysaan? siiradiisii loo haysaan. idan waxa weeyaan ma aha shaksiyad uu shaydaanba xaggeeda usoo kici karo. kuwa shayaaiinta wax ku akrinayaan waa inay sifaatkan yeeshaan. waxay badiyeen nimanka carbeed oo in badan isku dayeen inay dadka yidhaahdaan ama waa waalan yahay ama waa gabaya. ilaa qur-aan soo degaya ilahay uu leeyahy maaha gabaya, oo ilahay leeyahy shaacir iyo majnuun soona maaha. bale ilahay wuxuu xataa qur-aanka lagu sifeeyey sifaatka gabayaaga lagu yaqaano. 3 sifaat lagu tilmaamay. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. 3 صفات خاصيات بيليهم بالي بل كيف يا نبي محمد مقايسة. وعلى الشعراء هذه يبروح الرعادتك غوائيته جماهير اسكاب ساكينة وما وحدة لن ذاك لوغين أيوم بنت هذا اللي سقط توسيق وحيوم مكان وصعب بيرعى وحكى له إلهي وكشاك كوح شعراء الضبط مكان رجل هو النوع عسلي فنانين تي النوع عسي انت وقوب بضلي دمر يعبروا يدد ولا وضع صعدا بقول في رسالة دوهم مدك في عمها سام النوع عسي إلا الذين آمنوا بإلهك صوفا كوح يربع لصوفا in yar baa laga istitnoodo la yidhi kuwaas waa ka hadlan yihin laakin inta ugu badan waa nooca kan. wax kaloo waa la sheegay subxaana watacaala alam tara anahum fi kulli waadin yahiimuun. waa dad meel walba iska dhumada waxu arkaba wax ka sheega. nabi maxamed kaama yahay baa laleeyahy alayhi salaatu wasalaam. had iyo goor dadka gabayaagi waxay u badan yihin dad sarsaarina, dad hadal badan oo sheeko badan oo wax walba wax ka sheego hadlowna afka isku darin. waxa kaloo ilaahay uu ku sheegay waanahum yaquluuna ma laa yafcaluun. waxaanay samayna way sheegtaan. fahmu gabayaagu waa faham badan yahay hadiyo goor. hadduu reerkooda ammaanayo reerkooda bahaaladii dadkao dhan cunay buu ka dhigaya. hadduu isagu is ammaanayo yani nin khatara buu iska dhigaya. waa waxaanu samaynoo tiro badan ayuu sheegtaa. ilahay markaa wuxuu yihi waanahum yaquluuna ma laa yafcaluun. waxaanay samaynoo tiro badanna way sheegtaan. nabi maxamed miyaa sifaatkaa ku haysan ba ilahay leeyahy. yani ma aha sifaatkan oo dhan laguma hayo. sifaat waa wanaagsan baa lagu haya. qur-aankuna in badan ayuu xalaaliye waxay shubahaad soo arooriyeen uu radiyey.
shubahaadka tirada badan le ay soo aroorinayeen inta badan waa shubahaad ku salaysnaa madmadow in dadka laga geliyo diinta, gaar ahaan tawxiidka iyo risaaladu nebi maxamed waday, iyo inuu bacsi jiro wakti dambe oo laysa soo saarayo qiyaama inuu jiro, iyo qur-aankan inuu xagga alle ka yimi. waxaasay dadka shubahaadka gelin jireen. maray yidhaahdaan ilaahay muxuu malaa'igu soo diri waaye, iyo maray yidhahdaan bal rasuulkan suuqa idinla wareegaya suuqa isba ku xoogsanaya haddana nabiga idiin sheeganaya eega. yani waxay rabaan inay yidhahdaan ma lihada rasuul yaakulu طacaam wayamshi fi aswaaq, wa waa rasuulkan cunada cunaya isba suuqa marmaraya. ilaahayna subxaana watacaala in badan buu wuxuu dhan radinayay ilaa xadda beynta ay abuurteen ay yidhahdeen ma anzala allahu calaa basharin min shay. ilahayba dadka wax kuma soo dejiye maxaa malaa'ig loo keeni waaye bay yidhahdeen. isagoo ilahay radinaya waa kale qul man anzala alkitaab aladi jaa bihi muusa. nabi muuse kiisa way rumaysnaayeen. haddaa kii hore muuse sidee yaa keenay baa laleeyahy subxana watacaala, miyaan bini aadam ahayn cidda loo soo dhiibay. waxaa la subxaana watacaala ku tilmaamaya muuse baa inuu rasuul ahaa, nabi maxamedna inuu rasuul yahay oo lamid yahay. mar waxay lahaayeen anaba bini aadam kula mida maanu rasuulla noqono. ilahayna waa kau tilmaamaya allahu yaclamu xaytu yajcalu risaalata. ilahay isagaa og ciduu dooranaya uu rasuul ka dhigayo. waxay ahayd un dafiraad la rabo nabi maxamed la dafira dee nebi ibraahim iyo ismaaciilba way rumaysnaayeen inay ambiye hore ahaayeen. waxay laakiin rabeen inay kolba dacaayadoo afuraan. mar ay yidhahda muxuu miskiinkaagi agoonkaa ka soo diraya mu labadii oday ee magaalooyinka waaweyn soo diro. lawlaa nuzila hada alqur'aan calaa rajulin min alqaryatayn cadiim bay lahayd. labada oday ee waaweyn ee labada magaalaba mid kamida lasoo diro, maxaa adiga lagaa soo diraya? ilahay ba wuxuu ku leeyahy ahum yaqsimuuna raxmata rabbik, ma yaga ilahay naxariistiisa qaybiya? markay odayaal u qaybinayaan iyo nooca kan, ma yaga ilahay naxariistiisa qaybiya baa ilahay leeyahy subxana watacaala. allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata, yani ilahay isagaa oga cidda uu rasuul ka dhigayo iyo cidda ku haboon inay risaalo qaado. marar kale marka ilahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inay lahaayeen waa maxay rasuulkan suuqa joogay oo xoogsanaya caynkani, ma ilaahay ama rasuul soo diro, ama hadduu rasuulku xagga alle ka socdo boqoraduba ninka ay soo dirayaan cid u dirayaan xaashiyo dhan baa la raacaya. yani madaxweynuhu markuu ummadiisa soo dirayo wasiire waxoogaa askar iyo dad la socda iyo waxoogaa lacagay waxbaa lasoo raacaya. muu qof muuqda noqdabay leeyihin hadduu rasuul lasoo diray u yahay. waa ka ilaahay ku tilmaamaya inay yidhahdeen lawlaa unzila ilayhi malak fayakunu macahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu janna yaakulu minha waqala aalimuuna in tattabicuuna ilaa rajulan masxuura bay dhahay. nin la sixro waalanuun ayaa daba socotaan. laakiin waxaasoo dhan ilahay baa radiyey subxaana watacaala. waxyaabahay ka horgeynaya waxaa kamid a inay dacaayad ku furaana inaan aakhira jirin. aidaa mitna wakuna turaaban wacidaamana ina lamabcuuun aw aabauna alawaluun ama dalika rajcun baciid meel kale ay ku tilmaamayeen. waxaasoo dhanna ilahay baa wada radiyey subxaana watacaala oo u tilmaamay bacsu bacda almowt. waxaa loogu talagalay dee dadku xumaha inay dunida ka samaynayaana tirada badan leh, iyo hadhow inay sidaa un lagu wada sinaado. qof waliba mar intuu dhinto un da wax xukum isku wada mid ah. kii kunka dilay iyo kii aan waxba dilin geeridu way wada haleelaysaa. idan maxaa danawa tilmaaminay siradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xilligii dacwadu calanka ay noqotay ama kor loo qaaday oo ay ka baxday dadkii hoos loogu sheegayey, iyo muwaajahadii ama kahorimaatinkii ay kala hor yimaadeen nimanka quraysheed oo ku saabsanaa siyaabo kala gedisan. aynu soo tilmaamnay markaasi inuu kamid ahaa jees iyo kucayaayar ay ku cayaaraan, beenin iyo qosol lagu qoslo, shubahaad la soo arooriyo iyo mugdi la geliyo oo la isku dayo in diinta dadka mugdi laga geliyo. waxyaabaha adeegsadeen waxaa kamid ahaa markaa iyagoo isku dayayey inay u diidaan dadku inuu qur-aanka dhagaysto. waayo qur-aanka oo ilaahay hadalkiisiiya subxaana watacaala garanaysa afkan uu kusoo dayay hadday dhagaysato wax shaka la-aana inuu raad weyn ku reebayo. waayo de waa kitaabu hidaaya, waa kitaabkaa loogu talagalay subxaana watacaala inay dadkani ku hanuunaan. waxay arkeen markaa qur-aanku raadka badan uu kuleeyahay mujtamaca iyo sida uu raadaynayo. sidaa awgeed ay waxay doorbideen in ay isku dayaan inay dadka u diidaan inay dhegaystaan, oo dadkooda wax magaratayga iyo meelahan si o dhanta la ururiyo. haddii la arkaba nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akrinaya in lagu buuqo oo qaacida ay qaateen ah, haddii uu isagu hadla idina ka dhacaan hadla un
bas cidi kala maqli mayso waxba waa lasi kala tegaya waxba la dhegeysan maayo markaa. waka ilaahi subxaana watacaala qur-aanku tilmaamaya leh waqala aladina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'an walgaw fiihi lacalakum taglibuun. ilahay ba wuxuu leeyahy subxaana watacaala kuwii gaaloobay ba waxay dhahdeen qur-aankana dhegaysanina ee walgaw fiihi ku buuqa ku qayliya un. hadday sidaasi dhacda lacalakum taglibuun waxaa laga yaabaa lacalakum taglibuun inaad ka guulaysataan ayay u badan tahay. bale ahlu sirku waxaabay soo wariyaan ragga badna inay intay rus qabteen xiiro meelahaas ninkii nabar bin xaarta la odhan jiray inuu warku tirikuteena soo ururiyey oo meeshii uu nabigu fadhiisto alayhi salaatu wasalaam isna wax ka sheegba isna yidhahdaana sheekooyin kala fiican baan hayaa oo boqoradii beershiye iyo waxoodii sheeka xariiftoodii oo dhan intuu soo ururiyey ayuu yidhahda anigii maxamedka ayagaba sheeka fiican. waana ka ilaahay ku tilmaamaya bay mufasiriintu tilmaamaan wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi liyudila can sabiili illah. calaa kulli xaal waxaasoo dhame waxay ahaayeen nooc la isugu dayay in looga hor yimaado diinta oo loo diido oo ka ugu yari uu yahay in la buuqo oo la qayliyo oo loo diido dadku inay diinta dhegaystaan. waxaa kaloo bilaabmay isaguna nooc cadaadis ah idihaad in la cadaadiyo oo haddii wararkan badan ee waxba ay tari waayaan ficlan in gacanta laysula tago. cadaadiskani markaa inuu lababa ku dhaco nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ku dhaco dadkii kale ahaa markaasi muslimiinta dadkii soo islaamay. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inu leenahay in badan isaga waa ka haybaysanayeen ama waa ka baqayeen ama qof sharaf lo agtooda mudnaan kale buu ahaan jiray. haddana waxaa jiray un qaab la isugu dayayo in wax loo dhibo oo matala qisadaynu kasoo waramayna abilahab ee waa beentii dawla daba socdayba de waa nooc dhibta kamid a nin weyn oo nin weyni daba socdo una wuxuu leeyahay in ay tahay wuxuu sheegaba waa beentii ama waxba kama jiraan. ama umu jamiil waxay samaynaysay arwa bintu xarb gabadhii la ohan jiray waa gabadhii abilahab iyaduna waa tii heesaysay lahayd muzamamuna abayna wadiinahu qalayna waamra wacasayna. waan caynkaasi oo kale ahaayo culamadu xadiidku wax ka yidhahda waxba ka ururaya marka la eego sanadada badan ay kusoo aroortay. waxay tilmaamaysay yani waa muzamam bay lahayd waa mid la ceebeeyey mid la heereedateeyo aanu diidnay diintiisana waanu nacnay arrinkiisana waa caasinay saasay ku dhawaaqaysay. bale iyadoo waxaa la socota waa ti abibakar u imanaysa lahayd abibakarow saaxiibkaa miyuuna soo caayay adhaja yani ma gabay cayu saaxiibkaa noo soo tiriyay bay leedahay qur-aanka ay doonaysaa inay gabadha ka dhigto gabadheeda abilahabikii soo degay ayay diidantahay inuu qur-aan yahay oo ay rabtaa inay tidhaahdo gabay hija iyo gabay caayiya inuu nebigu usoo tiriyo kale. abibakarna wuxuu lahaa maya. waanatuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix lbukhaari ku yaalay alaa tacjabuna kayfa yasrif allahu cani shatma quraysha walacnihim yashtamuna muzamama wayalcanuuna muzamama waana muxamadun buu nebigu lahaa alayhi salaatu wasalaam. midan arkayn buu lahaa nebigu sida ilaahay uu ii dhaafiyey caydii iyo naclashii quraysheed waxay intaa caayaan bu yihi muzamam mid la yidhaahdo iyo ay nacdalayaan aniguna muxamed baan ahay muzamam mahi kula caayey ama kula haydaateeyey mahiye kula mahadiyey baan ahay oo muxamed baan aho ilaahi subxaana watacaala magacayga kaas buu ka dhigay. waxaad ka garan kartaa yani dhibta la gaarsiiyey matala nabiga calayhi salaatu wasalaam